sida wasiirku sheegay taariikh nololeedkiisii uu soo maray oo uu dalka usoo halgamay oo usoo shaqeeyey baa barnaamij khaasa lagaga sheekeyn doonaa. waxaan kale oo tacsi gaara u dirayaa ganacsade cabdirashiid shire guddoomiyaha rugta ganacsiga muqdisho ahaana mulkiilaha hoteelka suxufi ayaan isla tacsi gaara u dirayaa. waxaan dhammaantood intii ku geeriyootay hodhalkaas qoysaskoodii iyo eheladoodii uga tacsiyeynayaa tacsidaa foosha xun geeridaa foosha xun ee ku timi ayaan uga tacsiyeynayaa. waxaan ilaahay uga baryayaa inuu ilaahay jannadii iyaga ka waraabiyo. inta ku dhaawacantay falkaa foosha xunna waxaan ilaahay uga baryayaa inuu caafimaad siiyo, caafimaad degdega inuu siiyo ayaan ilaahay uga baryayaa. waxaan dhammaan qoysaskooda u rajaynayaa in samir iyo iimaan ay ilaahay uu siiyo ka siiyo falalkaa ku yimi, kuwa ku geeriyooday iyo kuwa ku dhaawacmayna. ummadda soomaaliyeedna dhammaan waxaan uga tacsiyeynayaa falkaa foosha xun, inta ku geeriyootay, inta ku dhaawacantay, inta ku lubtay oo hanti ku lubtay, dhammaan waa uga tacsiyeynayaa. waxaana aanu ku bogaadinaynaa dhacdo meel ka dhacday nabadgelyada qaranka iyo jiritaanka qarankan waxay u dhimaysaa ma jirto. waxaan u sheegaynaa kuwa falalkaa ku kacaya soo celcelinaya oo aan la garanayn ciday u adeegayaan, aakhiradooda iyo adduunyadooda midna aanu adeegeyn. waxaan rajaynayaa oo aanu anagu leenahay in ay ka waantoobaan. waxay ku gaarayaan male, wax natiijo ah oo ay ku gaarayaan male. way ku cadaab mudanayaan, adduunyadana waa ku seegayaan, aakhiradana waa ku seegayaan. waxaan u gudbinayaa microfoonka